السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخيارت شرفت احترامك يا كرامة بدنات بانيني سلامينا صلاة حشمد يا وناك بدن بانو هوديني صومرنينا كسو دواده كنال كينن عافيمات كيدريال كعافيمات كنولوشا waxaa iska soo daba dhacaya ama dabcan qoraaladayna soo gaaraya dhinaca Gmail-ka ayaa waxay yihiin kuwa xagga similarity-ga ka siman ama iskaga mid ka su'aal aad inugu soo noqnoqota oo ah qaabkan u nafaqaynayo ama aan u tayaynayo ama aan sare ugu qaadayo dareeraha tarankayga. arrintaas ayaa inta badan aad inugu soo laalaabanaysa waxaana dabcan keenaya dadka inta badan arrintaa ka hadlaya waa dadka ama siday qoraalada ku soo qorayaan qaar ka mid ah walaalaha qoraalada inoo soo dira inay ku sababtay ama ay markaa ay iskaga baqayaan inay ku sababi karto ama ay xilliyada ka mid ah ay sameeyeen ficilka aadka u foosha xun ee sigada. haddaba haddaynu ku soo dhawaano qoraal uu inala soo wadaagay walaal ka tirsan walaalaha kanaalkeenan inta badan ku xidhan ayaa waxa uu tilmaamaya in lagu alhaamiyey sida uu tilmaamay ama shaydaan u qurxiyey balwaafeedka aadka u foosha xun ee sigada. wuxuu yidhi muddo badan ayaan hawshan ku jirayaan samayn jiray xilli kasta iyo waqti kastaan daayo markaan muddo joojiyo usbuuc ama bilan joojiyo ayaa haddana shaydaanku mar kale durbaan kale ii garaacaya oo halkii aan ka wadayaa buu yidhi. xilliyadii ugu dambeysay xadhig adag baan isku hayay buu yidhi waanan joojiyey waanan ka toobad keenay waxaana aad ugu rafiiqay buu yidhi aan la socdaa inta badan casharada digniinta iyo kuwa doosinta ee aad ku soo bandhigtaan ama aad uga digtaan bulshada. waxaan kale dhagaystaa buu yidhi qoraalada ama fariimaha ama waraaqaha ay soo diraan dadka iyaguna balwadan ku dhacay oo aan markaa ka eegaa buu yidhi dhibaatada ay gaadhsiisay inay iyagana dhibaato la mida ay gaadhsiisay markaasaan iyagana kuwaan aan ka qaataa buu yidhi kuwa aan ka ladanay anigu weli indha xanuun ma dareemin buu yidhi oo dhabar xanuun ma dareemin dadka laakiin kuwaa dareema markaan arko ayaan waxoogaa yidhi diila aan isdhaahdaa weli adiga kumay diloonin ama kumay baabiina waaba lagaa sii daran yahay. haddaba walaalkani wuxuu yidhi waxaan arkay buu yidhi aan imika isku arkay buu yidhi waxoogaa taalkii iyo tamardaridii faraha badnay inay iga yaraanayso firfircoonidaydii baa dib u soo noqonaysa buu tilmaamaya awooddiina way soo xoogaysanaysaa buu yidhi markaa waxaan doonayaa buu yidhi inaan imika si fiican isku baanto kadibna reer iyo guri iyo mustaqbal aan samaysto. isbaanashada aan isbaananaya ayaan doonayaa buu yidhi inaad ii sheegtaan bal meesha aan ka baanan karo ama aan ka kobcin karo ee weliba aan helayo. dhakhaatiir aan la xidhiidhay waxay ii soo bandhigeen buu yidhi tawaas faydamiina in la qaadan karo. wuxuu yidhi waxyaabaha badan baa la ii sheegay laakiin waxaan doonayaa buu yidhi waxaan heli karo haddii aad garanaysaan inaad ii soo sheegtaan oo aan dhakhtar igaga xidhnayn ama markaa aanan meel shishe aanan ka tiigsanaynin ama aanan ka doonanayn. arrintaas ayuu ina soo weydiinayaa walaalkan oo uu inoo soo bandhigayaa. aad buu mahadsan yahay walaalkaas iyo walaalaha kale ee qoraaladayna soo gaadhsiinaya. jawaabtan aynu imika bixinaynaa wiil inankanuun ama ninkanuun ma aha jawaabu ma ahaanayso laakiin waxay si caama u gaadhaysaa dhammaan su'aalihii layna soo weydiiyey ee laga yaabo qaar ka mid ah inaynaan ka soo jawaabin waayo email kastoo inoo soo dhaca ama warqad kastoo qoraalka laynagu soo diro waxaa suuragala mararka qaar su'aashan la midka yihiin ama ay aad iskaga dhow yihiin waxay u noqon doontaa jawaab. waynu soo qaadan doonaa qofka doonaya in qoraalkiisa la arkhiyo ee bulshada lala wadaago insha Allah inta Ilaahay naga waafajiyo marba mid baynu ka soo qaadanayna. waynu ognahay waynu jecelnahay bulshada inoo soo dhigtay inta badan qoraalada waxay kaloo jecel yihiin inay wacyigelin u noqoto bulshadana ay gaadho. aad baad u mahadsantiin. haddaynu ku soo dhawaano tala bixintiisa ama tala siintiisa ama recommendation-ka aynu u soo jeedinayno walaalkan iyo walaalaha kale ee wadadaas iyo fariiqada raacay. marka koowaad haddii aad joojisay oo aad ka toobad keentay isla markaana aad ka tiilaanyoonayso oo aad ka murugootay arrintaasi waxaa xalkii ugu weynaa iyo tallaabadii ugu weynayd baad qaatay inaad naftaada u bushaarayso waa naftaada bushaaro aad ugu ballan qaata ayaa qurux badan. inta badan naftu xilliyada qaar waxay u baahan tahay motivation iyo wax loo yaqaano inspiration
in lagu sameeyo encouragement iyo dhiirigelin. marka go'aanada wanaagsan aad qaadato naftaada inaad u mahad celiso waa shay aad u qurux badan. marka nafta go'aan aad ka qaadan kari weydana taasi waa markaas inaad canaanato, aad ku garbaashto, aad ka qabato nafta waxa markaas dhibaya. qodobka haddaynu ka nimaadno waynu u nimaadno nafaqaynta, tayeynta iyo kobcinta dareerahaas uu tilmaamay walaalkani ee uu malaynaya inay markaa iyo goobtaas iyo qaybtaas si uu markaa awlaad iyo mustaqbal iyo reer uu samaysto. meelaha ugu waaweyn ee laga nafaqeeyo ama tarankaas iyo nudayaasha inta badan qaybta taranka ugu fiican waxa qaybka in la helo vitamin A. vitamin A timirta nooca ka midka ee inta badan timirta aadka u tayada wacan gaar ahaan timirta waddanka Ciraaq al-Basra ka baxda magaaladaas ayaa aad u tayo wanaagsan iyo dhammaan timiraha khaliijka meel kastaba ha ahaato timirtu waa wacantay. timirta cabitaan ka dhigata meeshay doontaba ha ka dhimaatay kasta timirtu ay kala tayo fiicanta waxa ka nutrientska iyo health beneficialska ay leedahay ayaa u kala duwan yihiin. haddana si kastaba ha noqotee timirta aad helayso oo cabitaan ka samaysataa salaada horena aad cabtaa waxa ay ka qayb qaadataa kobcinta iyo badnaanshaha unugyada qaybta cadcad ama loo yaqaano white cellska unugyada cadcad inay kobciso, taasoo qofka u saamaxaysa hadday unugyadaas u bataan oo ay tamar u yeeshaan oo awood u yeeshaan inay dhinaca raganimadiisii iyo ninnimadii iyo tafiirtii iyo awooddii ninnimaduna ay aad u soo kacayso oo aad u soo kobcayso. haddaba arrintan inuu walaalkani xasuusnaado ayaa muhiima. timirtaasoo juice baad ka samaysanaysaa waxaanad u samaynaysaa inaad salaada hore aad cabto, habeenkii inaad ku sii seexatana waa okay waa samayn kartaa, laakiin habeenkii waa laga yar wacan yahay oo subaxii ama maalintii ayaa dhakhaatiirtu ay aad ugu soo bandhigaan ama inta badan recommendationska laga bixinayo cuntooyinka xilliyada la kala isticmaalo. timirtu waxay ku wacantahay salaada hore in la cabo. qofka haddaad caana ka sii helayso ama aad caana ku darsan karto ama adoo timirta cabay caana qaadan kartana ka sii fiican. lowska ayaa iyagana waxaanu ka dhignaa inta badan first priority-ga ama meelaha ugu waaweyn ee laga nafaqeeyo. ugxanta qudaarta inta badan badda qudaarta caadiga cuntooyinka badda laga helayo cuntooyinka galka iyo gaska leh ee digirta noocyadooda kala duwan inuu kuwa qaatana walaalkan iyo walaalaha kale ee laga yaabo inay arrintaas ama aafadaasi ay saamaysay inay iyaguna wadada ay maraan. jimicsiga iyo dardargelinta maskaxda iyo jidhkuba waxay ka sii qayb qaadataa qofku inuu dhismo, inuu jidhkiisu habaysmo, inuu markaa jidhku sameeyo wax loo yaqaano qashin saar oo uu dhiig fiican soo galo oo fureesha oo markaa energy fiican uu helo, awoodda dhammaan organada jidhkuna ay tayoobaan oo ay cuslaadaan. sidaa laajigeed walaalkan waxaynu kula talinaynaa inuu timirta iyo lowska iyo caanaha uu bariinsado oo ay sare u soo qaadayso. waxaa laga yaabaa inuu ku yara cayilo ama uu naaxo ama uu buurto markaa wuu joojinaya haddii uu qaabka isku arko, laakiin markuu doonayo inuu cayilka ka hortago waa inuu socdaa, jimicsi sameeya, exercise sameeya ama si fiican markaas uu gubaa energy-ga faraha badan ee uu helayo ilaa inta uu ka guursanayo ama reer iyo xaas ka samaysanayo. intaas ayaynu ku soo ururinayna. waxaa su'aalo qabtaan noo soo sheega waa idinka soo jawaabi doonaa. wixii fikir iyo afaal aad qabtaanna nala soo wadaaga. waxaa kaloo kanaalkeena qaybka ah inaad fikirkaaga aad ku gudbin karto wixii markaa macquula ee bulshadu ay ka faa'iideyso inaad noo soo wadaagtaan. halkan baanu idinka sheegaynaa oo dadkeena ayaynu la wadaagaynaa hadday caafimaadka noqoto hadday mowduuc kale oo bulshada ku saabsan ay noqoto. intuba waa mid aynu dabcan aynu doonayno inaynu wada wadaagno waaynu si markaa unid ah oo together aynu u wada duulno aynu wax kasta u wada sheer galayno. Assalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته.